ciidamada militariga Somaliland ayaa xalay soo qabtay alaabo kala duwan oo ahaa kuwa wax lagu qarxiyo mid kamid ah ciidamada dabagalka militariga Somaliland ayaa xalay abaar 9 fiidnimo waxa uu arkay nin xidhnaa xijaabka dumarka oo sitay qalabka wax lagu qarxiyo isla markaasina doonayay in uu qaraxyo ka fuliyo meel u dhow biriishka labaad ee magaalada Hargeysa iyo hareeraheeda hoggaanka sahanka ciidanka militariga Somaliland Maxamed Cabdi Cali Shiine oo isagu arintaasi faahfaahinaya ayaa waxa uu yiri askarigaas markuu soo dabagalay wuxuu kula soo dhaadhacay halkan maxaan ku yiraahdaa xaraf iyo dooxa ayuu kula soo dhacay meesha dooxa laga soo galo ayuu soo dhaadhacay ninkii markaa ayuu maradii wuxuu sitay baa la yiri ayuu yiri jilbaabkii iska fayday ka bacdi waxan ayuu iska soo saaray maxaan ku yiraahdaa oo ku sitay jilbaabka hoostiisa baastooradu way cabaysteen wixiina uu tuuray meesha maxaan ku leeyahay ay siteen markaas askarigii niman habaysan ayay noqdeen ka bacdi wixii ay tuureen buu ku yutahay inuu soo qaado waxay qarxin kareen maxaan ku yiraahdaa guriga madaxweyne ku-xigeenka biriishka ilaa inta u dhaxaysa meesha la yiraahdo iskuulka maxaan ku yiraahdaa hoteelka la yiraahdo baal xaraf Sagal Mustafa Xasan Nuur Universal TV Hargeysa